dadku waxay ku ordayaan meelo la yiraahdo quraan akhris dad wanaagsan waa dhici karta inay ku jiraan laakiin waxaan u maleynayaa dad badan oo shayaadiin ah inay ku jiraan oo iyagu shayaadiinta dadka ku yaaciya meeshana u furtay shaqo diin macna lana aan lahayn maalmo ka hor waxa ii yimid niman iyo haweeney isdacweynay haweentii waxay leedahay jinni ugu dhacay haye nimankan oo meel quraan akhris ah ay u farantaan u timi haye kursigaas fariisada ay dhahay haye sankay wax ii saareen asan suuxay tir oo kursiga ka dhac kadibna muddo markaan suuxsana indhaha kala qaaday tir indhahi daawo iga dhibciyeen tirmisan inuu isku dhagay haye muddo markaan maqnaayaan waxaan arkay tiri nin lugahayga xarig intuu ku xiray awal hore midhaa ka furaya hadda haraati baan ku sii daayay ilay baf ka siidan ninkii wuxuu leeyahay isheediyaan rabaa ayadiina waxay leedahay waaba isuuxiyay dihnigayaan ka rabaa maskaxdeedii ka rabaa maskaxdii muddo dhammaan aan ka maqnaayay tiri khat wuxuu lugahayga ka sameynayay isagoo xarig ka furayaan cag ku dhiftay tiri wuxuu lugahayga ka rabay lugahayga muxuu ka rabay xaytaa waxaas lugahayga maxaa u geeyey xarigan ka furayay lugahayga oo yaa xirku yiri markii hore oo maxaad u xiraysay maya shayaadiina aan ka saarahay maxaa laga aamini karaa maxaa laga rumaysan karaa iyaduna way khaldantay iyaguna hadda meeshaba waxaa dhici karta inay u furteen xoogaa lacag ah waxaa la rabay marka suuratul baqara inay barato oo iska akhrisato saas la rabay iyada ku aadi haweenka marka midii madaxu xanuuno jinni miya ku haya mise kuma hayo war kama hayse quraan akhrisay ku ordi waxaana dhici karta awal jinni aan haynin soo saaraan kuway u tagaysa looma baahna marka in ay tiraahdo quraan akhrina u socdaa meel quraan lagu akhriyaan u socdaa iyo wax baahiya looma qabo suuratul baqara hal laazimo bis iyo qofkii raba inuu soo gaabsado aayadahaas kooban waxaan masaajid in sheekhu darsi ka akhrinayo maka ka dhigaysay qisadu waxay leedahay gabar ahlu diin ah ayaa waxaa jeclaaday canug ciyaal suuqa reer maka gabadhii uu doonay waxay tiri ciyaal suuqa ma guursado aniga ma ku doonayo markaasuu wuxuu yidhi culama noqonayo hayo noqo qamiis gaaban intuu soo iibsaday oo garkii daystay uu safkii hore caday la istaagay maba ka tegayo masaajidka muddo kadib gabadhii waxaa lagu yidhi ninkii wadaaduu noqday mudawic ay dhahan ayaga mudawicuu noqday ninkii saas hadday tahay waa guursanaya hayeba waa isguursadeen bil markuu la joogay uu ciyaal suqnimadii ku laabtay markaasay waxay tiri aawo wadaadnimadii maya waxaas waa laga soo tegey waa la hadashay berigii dambe uu soo kaxeeyey gurigeedii uu keenay gurigeedii markay gashay warqad u dhiibtay warqaddii bannaanka markuu la tegay uu akhriyey waxay leedahay mar dambe ha ii imaan saasay warqadda ugu qortay mar dambe ha ii imaan waxaa ku yaalla jiddo xaafad karantiino la yidhaahdo waxaa dega dadka afrikaanka ah waxaa aad u dhex yaalla sixir marka iyaga dhexdooda ayaa wax isku samaysta ummadda kalena war kama hayso xaafaday u gaar yihiin waayo ninkii wuxuu yidhi islaantii waa iga tagtay maxaan sameeya wax karantiino tagaa la yidhi karantiinu tegey odayuu u tegey wuxuu yidhi haweenaydii baa iga tagtay ma soo celi karta anaa soo celinaha lacagteedu
lacag buu ka qaaday wuxuu yidhi anaa si degdeg guriga ku celinayo usbuuc iga warso usbuuc kadib oo la hadlo wuxuu yidhi hayo hawshii ka waran guriga ka fiiriyo guriguu tegay wax jooga ma waa soo laabtay wuxuu yidhi guriga wax jooga ma wuxuu yidhi wax awooda uma lihi anigu intaas ka badan maxaa igula talinaysaa markaasuu wuxuu yidhi aniga sixirkayga heerkaas ma gaarin laakiin haddaad rabto hindiya aad yaa ii sheegaysaa hindiya hebel ee hindiya jooga u tago hindiyu diyaarad u raacay ninmuu u tegey wuxuu yidhi haweenaa iga tagta lacag intaasoo la arkeen uu yidhi anaa soo celinaayo lacagtii uu bixiyey imisaa qaadanaysaa usbuucaan qaadanaya usbuuc kadib wuxuu yidhi taleefon dir gurigii in la joogo taleefonuu diray waxba ma joogaan guriga besuu yidhi aniga wax kale ma qaban karo haye marka maxaan sameeya markaasuu muftiga u tag muftigaa sixirka yani shaydaanku weyn sixirka waayo xaguu joogaa meel hebeluu joogaa ninkii u tegey arrintaasaan rabaa buu yidhi lacagihii laga qaadi jiray showhu lacag aad uga badan iyuu ka dalbay lacag intaas laakeen buu yidhi lacagtii buu ka qaaday usbuuc iga warso usbuuc markii dhammaatay buu u tegey ninkii waa maxanaaqsan yahay war maxaa jira war naga tag buu yidhi ciidankii waa naga laysay suuq baa tahay ciidankaygiina waa dhammays buu yidhi oo maxaa jira 100,000 ciidan gaarahaan garuu yidhi wax ka soo noqdana ma laha oo maxaa ku dhacay guriga gabadho ay joogto suuratulbaqara lagu akhriyaa ciidankaygii oo dhanna gam baa laga dhigay khasaaradana ii soo geysay khasaarad ii geysatay taas ku yidhi marka quraan akhris ayaynu ku sii ordin haweenku ee guryahooda suuratulbaqara intay bartaan ha ku akhristeen bas quraan akhrisaan tegey waa la suuxiyey lugaha layga xiray sanka waxa la ii saaray wax baahiyo looma qabo bas quraanka ha barteen suuratulbaqara ha barteen hana isu akhriyeen iyagu guryahoodana ha ku akhriyeen hana ka saareen asbaabaha shayaadiinta soo jiida هذا وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه